السلام عليكم لو يعد حاجين كبلونا فدقاتك شاتك ماني والبوارنا إيه ماني كريات هذا شاتك ها مش قانه وين هو اليوم mise kulaylka dadka sheelaya kulaylku soo xasuusinaya kii ka jiray wadamada khaliijka ciddii ku noolayd mar maalin uu nolosheeda ka mid ah waxaan ku dhex socdaa deegaanka Lowyacadde oo runtii leh kulaylka subxaanallah kulaylka wadamada carabta ka jiro waxaan ka hadlaynaa taariikhda qaadka maxay muqayiliintu saacado badan u fadhiyaan maxaa keenay xitaa inay caruur yar qaadka cunaan fiiro gaar ah inta aan mawduuc sii gelin si aan qalad loo fahmin موضوعاً لدكم أهن دادكاس دقن ديغانكاس Lowyacadde ee wanaag waxaan ahayn aanan kala kulmin kaliya waa sheegidda arrin dhibkiisa leh laba shay oo u baahan in wax laga qabto haddii ay noqdaan dhinaca wacyiga iyo dhinaca arrin la xiriira horumarinta waxaa macquul ah in wax uun wacyi ah ay kelmadahan soo kordhiyaan xeebtan Lowyacadde aadka u quruxda badan laakiin hal qofna uuna joogin weli ma isweydiisay sababta ولما اسوديسي يعني maxaa keenay in xeebtan aadka u quruxda badan oo hal qofna uuna joogin riyaha ay hadda joogaan sababtu waa kulaylka nin kamid ah dhalinyarada magaalada ayaa igu yiri haddii aad muddo ku noolaato Lowyacadde waxaa qasaba inaad qaadka barato runtii waa kelmad aad u weyn wax badanna muujinayso laakiin ma filaayo inuu arrinkan dhici lahaa haddii aan ku noolaado deegaankan Lowyacadde xuduudka Djibouti waxaad ku tilmaami kartaa tuulo ama magaalo yar waxaa degan dad ka cabanayo laba shay mid rabbaani ah iyo mid lagu tilmaami karo aafo wadareed bani aadamku ama Soomaalida ugu yaraan ay gacmahooda ku doonteen laakiin dhibkiisa leh midda koobaad kulaylka deegaanka oo aanan ka duwanayn runtii kii khaliijka ee 50 digri ku dhawaa laakiin aad qiyaasi karto runtii farqiga dhaqaale u dhaxeeyo khaliijka iyo Lowyacadde arrinkan wuxuu keenayaa in la isku hawlo yani haddii la hormarinayo deegaankan loo sameeyo xitaa warshadaha barafka sameeyo waa arrin fiican dadka deegaankan wax u tarayo arrinka kale ee ay dadku ka cabanayaan waa qaadka aad u weyn arrinku ma ahan yani sidaad u malaynayso inaan iska leenahay qaad arrinku ma ahan sidaad u malaynayso ilaa aad indhaada ku soo aragto waxa macquul ah in aad weyda ama yar tahay arkada nin dhalinyaro ah oo aan qaad cunaynin way jiraan laakiin way yar yihiin marka aan kelmadahan qoraayo yani waxaan dareemayaa in adiga aniga aan ku fashilanay gaarsiinta wacyi dhalinyaro badan in aan ku fashilanay in aan wacyiga sii gaarsiino annagoo u sheegayno dhibaatada qaadka waxa macquul ah na soo martayna intaan gaariga saarnayn qof duruuf ka muuqato inuu wadada ku istaago wadada gaariga gacanta u haatiyo kadibna uuna ku weydiisanin biyo kuma weydiisanayo baad ama cunno kuma weydiisanayo laakiin wuxuu ku weydiisan qaad ayuu ku weydiisan waqti aad qorraxda u kulushahay qof duruuf adag ay ka muuqato in uu gacanta ku haatiyo kadibna uu qaad ku weydiiyo mowqif runtii kugu keenay kun su'aalood inaad isweydiiso waa maxay sababta ay dadku sidan waalida qaadka ugu cunayaan xitaa carruurta yaryar أنا مرا أفرتهم سنة 4 سنة كبلوده wiilkan waxa lagu magacaabaa Cabdikaluun sida uu sheegay 14 sano ayuu ku bilaabay cunida qaadka su'aalahan kooban ayaana weydiiyay waxyaabo badan bidhaaminayo ee ku saabsan cunida qaadka ninkan waxa lagu magacaabaa Cabdikaluun waa 22 jir mise 22 sano 6 سنة la soo dhaafay qaadku cunay ninkan dhalinyarada ah hadda waxaan weydiinaynaa su'aasha maxaa kugu kalifay adigoo 16 sano ama 15 sano jira inaad qaad cunto hadda la igo sababta anigu waxaan u bilaabay waxaan jaadka maalin walba waan cunaa dad galatay wax faa'iido aan iguma soo kordhinayo sax waxaan iska ilaaliyaa wixii bilaa camalnimo iyo maalin kaliya haddaanan jaadka ها ما شقانه وين هو اليوم لكن سدد مالمي دوتلو jaadku go'ay ayay noogu darnayd muddo intee lagu maqnaa muddo mala 20 maalmood baq maqnaa 20 maalmood ha iyo qaadka maqnaa oo Soomaaliya 20 kaas maalmood waxa ku ahayd fursad aad ku joojiso oo iskaga taysa qaadka si aad 20 ka cisho maqnaa
waxaa jira ku magacaabaan Carabiga waxay dhahaan al-a'raad al-insixaabiyya qofka marka tusaalaan sigaarka cabo markuu sigaarka iska daayo bil buu cadaabmi yani wuxuu dareemay nafta inay ka baxayso hadduu sabro bisha ku xigto wuxuu noqon caadi marka dad qaadka joojiso maxaa dareentaa te wallaahi jaadka markaan joojiyo nafsad ahaanteeda dee haddaan uu ka jawaabo su-aashaas nafsad ahaanteeda ani jaadka haddii la gooyo waxba ima taro haddaan cunayana waxba ima taro laakiinse hal mid oo keliya maalin keliya taan daayo habeenii badan ma seexanayo ma seexan karaysid طيب bahal dubaab leeyahay baan ma islaadahay mar yani waqtiga ahaata waa joojin maalin iimaan doonto oo aan qaad cunaynin ma ku taamaysaa insha Allah maxaad u wajahaysaa dhalinyarada adig kule tusaalahaan meeqa sanad ku bilowday horta qaadka ana mala 40 sano 40 sanad ku bilowday dhalinyarada maxaad kula taliyeed marka hadda qof haddii uu waqtiga dib u soo laabto ma qayli lahayd mise iska deyn lahayd way ma cunayn okay aad baad maasanta haddaba aanu imaana qaadka maxay Soomaalida Yemeniyiinta iyo Xabashida inta badan u cunaan haddii aan si qayaxan oo run aan u hadalno qaadka waa qayb ka mid ah ama waa tilmaan muujinaysa dambayn qaadka waa wax muujinaya ummaddaas in ay dambayso waxaana daliilku ugu filan meelaha lagu qayilo kabarada lagu cuno nadaafad darrada iyo waxa ka jira qaadka waa shay muujinayo dambayn 1980kii hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku tilmaantay qaadka maandooriye dhib weyn leh keenayana idmaan addiction balwad waxaad rabta ku tilmaan keenayo oo qofku mar hadduu barto ay adag tahay in uu iska daayo maadaama jirkiisa uu la qabsanayo qaadka waa geed cilmi ahaan huwan magacaan hortanada ka muuqda laguna tilmaamo maandooriye Yemeniyiintu waa dadka ugu badan ee qayilo waxay u yaqaanaan markii daanka laga buuxiyo takhziina mukhazin qaad ay dhahan Soomaalidana taqsiin waa isla meeshii taqsiin oo ay takhziin ayagana leeyihiin kaliya waxa ay wadaagaan waa dambayntaas xaalka Yemen waad qiyaasi kartaa iyo meel walba qaad laga cuno qof walba oo aad u cuna haddaad weydiiso qaadkan aad ka cuno haddii aad weydiiso dabcan qaadka wuxuu ku tirin 1000 sabab oo keenaya inuu qaadka iska daayo sida ilkaha miriirsan muuqaalka laga naxayo dadka qaadka cuna inay saacado badan hal meel iska fadhiyaan gabitaanka xitaa xiriirka xaasaskooda kala dhaxay arrinkan saameyn ayuu ku yeeshaa laakiin sidaas oo jirto ayadoo waxa soo dhib xitaa qofka cunay uu ogyahay haddana iskama daynayo sababtu waa qaadku wuxuu dhaliyaa dareen dhalanteed ah iyo soo jeedid dhinaca jirka ah nashaad ayuu jirka siiyaa waxaad ku tilmaami kartaa dareenka uu dareemo qofka khamriga cabo laakiin ilaa xoogaa dabcan khamriga ka yar laakiin waa uun laba maandooriye farqi weyn uma dhaxeeyo heer uu jirka la qabsado dib u xasuuso hadalkii yarkii cabdikaloon ahaa yani hadduu muddo qaadka moogaado ma shaqayn karaayo tallaabo ma qaadi karaayo wuxuu noqon howlgab maadaama jirkiisa uu qaadka la qabsaday maalin keliya haddaanan jaadka ma shaqaynayo waan hurdiyaa haddaan wax yar qaadka aan ka yara baxno deegaankan loo yacde wuxuu leeyahay xeeb aad u qurxan laakiin uuna hal qofna joogin kulaylka ka jira awgeed ama dhalinyaradii fariisan lahaa inay ku mashquulsan yihiin qaylitaan weli ma isweydiisay sababta weli ma isweydiisay yani maxaa keenay in xeebtan aadka u quruxda badan uuna hal qofna uuna joogin riyaha ay hadda joogaan sababtu waa kulaylka cimilada halkan ka jirto iyo weliba xitaa midda zaylac ka jirto kama duwan haba yaraatee midda khaliijka ka jirto sidaas darteed dadku maba imaan karaan daqiiqadan aan taaganahay yani kulaylka ma qiyaasi kartaan inta uu yahay subxaan allah yani farqiga u dhaxeeyo Hargeysa tusaale ahaan iyo deegaankan waa mid ber iyo dhul ah geedahan aadka u quruxda dhulka saane dadku waxay ku jiraan qof walba darsuu ku hoos jira biyaa lagu bilbilaa dadku way feera qaawan yihiin waxaad arkaysaa weliba markaan tagnay Zaylac dadku way feera qaawan waxaad arkaysaa rag biyo isku shubaya kulayl darti waa cimiladii jasiiradda carabta ka sababta jasiiradda carabta aslan waa u dhinaca kale marka kusoo dhawaada Lowyacde
haddii aan wax yar qaadka ku yara laabanno waxaa macquula inaad isweydiinaysa sidoo kale dadka qaadka cuna maxay saacado badan u fadhiyaan hal meel waxaa la ogaaday inuu qaadku wato wax keenaya firfircooni jirkana ku jiraayo saacadii bar ilaa 3 saac jirka ku jiraayo markuu ka baxana qofku uu dareemayo xaalad caajis ah iyo wahsi weyn taasoo keenaysa in uu ku sii guro qaadka halkaasna iska fadhiyo qofkaas qaadka cunaayo haddii uu muddo moogaado yacni ma socon karaayo sariirta kama soo kici karaayo laakiin arrinka ay moog yihiin dhacdana runtii dadka qaadka cuno waxay khatar ugu jiraan in wadnaha si degdega u istaago waxaana jiro qisooyin badan rag ku geeriyooday goobta qayilka way dhacdaa qof haddaad weydiisana waxaa hubaal inuu kuu jawaabayo qisooyin badan uu kuu sheegayo goobta lagu qayl ku geeriyooday waxa sababtoo arrinkaana waa qaadka deegaankan low yacde waxaa laga isticmaalaa lacagta faranka jabuuti meeshan low yacde waxaa laga isticmaalaa ama ka shaqaynayo faranka jabuuti lacagta jabuuti oo dukaamada aad arkayso in ay dadku wax ku kala gadanayaan waa lagu kala iibsadaa sida dukaankan hadda aan geli doonno tan lacagta jabuuti tan waa toban baa la yidhahdaa tan waxaa la yidhaahdaa ku furan tanna waxaa la yidhahdaa 5,000 marka tani waa waxay u dhigantaa meelahaas wanka metoga kunka jabuuti waa $6 halkii kunka jabuutiyaan waa $6 maya kunkan waa $6 kunka faran ee jabuutiyaankii waa $6 kanna waa $50 oo 10,000 faran oo jabuuti runtii waxaan uga hadlayaa mawduucan deegaankan low yacde marka koobaad deegaanku ilaa heer waxaa la dhihi karaa waa meel qurxan xeeb aad u fiican leh xitaa dhulka ku hareeraysan uu iska fiican yahay laakiin labadan aafo midkaas insha Allah la xiriiri doono horumarka waan rajeynayaa in wax uun laga qabto iyo midka aafadan qaadka inay dhalinyaradu ku baraarugi doonaan ogaan doonaanna waqtigooda inuu yahay waxa ugu qaalsan cumrigooda inuu yahay saacadahaas ay kabarka fadhiyaan ay aakhriya adduunba waxba ugu fadhinin cumrigooda keliya uu ku baaba'ayo caafimaadkooda uu meesha ku burburaayo dabcan waxay imaan doontaa maalin aan ku soo baraarugi doonno ayadoo qaadkaas aanan la cunaynin meeshaan joogna magaceed low yacde magacaadiga ayaan leh maasha allah tv-gan youtube-kan kaa soo dayn magacayga waa cumar okay barasho wanaagsan xilliga habeenka ah deegaankan low yacde dad badan ayaa jooga sidaad u aragtaan meel walba waa la fadhiya sababta dadku waxay ka imaanayaan dhinaca xuduudka dhinaca 30 daqiiqo gaari ah waxaad tegi xuduudkii caasimadda jabuuti ee jabuuti marka dadku waxay ka imaanayaan jabuuti dadka intaan badanka dadka meesha jooga jabuutiyaan marka ku soo dhowaada meel kulul laakiin aanan khaliijka ahayn inta aanan ka bixin waxaan halkan salaan u soo marinaya dadka deegaankaas low yacde oo runtii sidaan soo sheegay wanaag waxaan aanan kala kulmin laakiin labadan qodob kaliya jacayl aan jeclay dartii aan u sheegay aan rajeynaya insha Allah inaan xal u heli doono mawduucan intaanu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh